Hello ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Haddii aad isticmaasho software loo yaqaan Adobe Premiere Pro oo dabadna culays fara badan kugu keenay isticmaalkiisu, maybe waxa laga yaabaa computerkii ku habboonaa ama PC-gii aan haysan ku habboonaa, laakiin saacaddan waxa jira tips iyo tricks la isticmaalo si loo fududeeyo workflow-ga software-ka dhexdiisa. Waxa jira layers fara badan oo effect iyo title iyo music iyo video iyo waxyaabaha isku jira oo timeline-ka ku dhex jira. Kuwaasi waa kuwa keenaya in uu playback-gaagu cuslaado ama uu laagin sameeyo markaad video-ga isleedahay daawo. Mushkiladda waxa lagu xalliyaa waxyaabo fara badan ama siyaabo fara badan oo kala duwan ayaa loo xalliyaa. laakiin maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago hal shay oo kaliya. Sababtoo ah video hore ayaan kaga soo hadlay 10 shay oo aad samayn karto si editing-kaagu faster u noqdo ama 10 times uga faster sanaado sida markii hore u isticmaali jirtay. Kaasina wuxuu ku jiraa YouTube channel-kayga waa full tutorial dhammaystiran. Marka aad rabto inaad soo daawato link-ga halka hoose yaalla profile-kayga ku dhufo toos buu kugu doonaa YouTube channel-kayga. Marka halkaas ka heli doontaa video-gaas iyo video kala fara badan oo la khuseeyo filmmaking-ka. Marka ha ilaawin inaad isagana soo subscribe garayso. Halka shay marka maanta rabaa inaan kula wadaagaan waxa weeyaan waxa loo yaqaano FX Mute ama global FX Mute baa la dhahdaa. Marka taas rabaa maanta inaan kula wadaago adigoo isticmaalaya Adobe Premiere Pro. Let's go. Waxaad tagi doontaa khaanada yar ee bottom editor-ka loo yaqaano. Markaad ku dhufato ka waxa ku soo bixi doonta calaamad yar oo FX ku qoran tahay. Drag and drop samayn doontaa kadib waad soo jiidi doontaa timeline-kaaga ayaa dul dhigi doontaa. Calaamadda yar marka timeline-kaaga soo dhex dhigato ee dabadna on ka dhigta taabsato ee blue noqoto waxa istaagi doona dhammaanba wax alla wixii effect ah ee aad ku soo samaysay timeline-kaaga. Haddii noqoto color grading, haddii noqoto transitions iyo waxyaabaha noocaas oo kala qaar aad soo import gareysatay waxyaabaha kadibna channelska culayska faraha badan leh kugu keenaya hoos buu soo dhici doonaa. walow aan wada istaagin laakiin haddana yar buu soo dhici doonaa. haddii aad rabto inaad barato TVC tricks editing-ka la khuseeya fadlan soo follow garee sidoo kale video-gana asxaabtaada la sii share garee oo aad raska u sii taawo. aad baan ku salaamayaa.